cadow badan oo gudaha oo runtii hadda aan la kala saarsaarayn oo Soomaali ah in ay wili diidan tahay in dalkan uu xasilo dalkan inuu arrintaas runtii waa arrin aan dadka Soomaaliyeed qaban waana fariin maalin walba inaan niraahno 1 Luulyo 26 Juun baan u dabaaldegaynaa waa ceeb iyo yaxyax haddaan dhulkii Soomaaliyeed lahayn haddaan dawlad Soomaaliyeed mid jirin haddaan dadku dareenkiisa ka sokow wada shaqayn dhab aysan jirin arrimahaas waxay ku ceeb tahay cid kastoo hoggaan Soomaaliya u haysa ciday doonto ahaatee anigoo ku hadlaya magaca Puntland waxaan halkan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Puntland inay diyaar u tahay inay dhismo dawlad Soomaaliyeed oo sal adag ay qayb ka qaadato dhismo dawlad Soomaaliyeed oo mar dambe aan leecin dhismo dawlad Soomaaliyeed oo mar dambe aan ka oohisiin ubadka iyo haweenka iyo inta jilicsan dhismo dawlad Soomaaliyeed oo aan cadow u soo hanqaltaagin dhismo dawlad Soomaaliyeed oo argagixiso aysan u soo humbaaleyn dhismo dawlad Soomaaliyeed oo cadaalad ku dhisan federaal ku dhisan isjacayl iyo maxabo ku dhisan wadajir iyo midnimo ku dhisan waxayna ku imaan kartaa wada hadal dhab ah iyo heshiis dhab ah waxaynu u baahannahay haddaan nahay hoggaanka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan inaan xaqiiqada wajahno inaan runta abaarno dalkeenni waad ogtihiin qayb ka mid oo xorriyaddan 26 iyo 1 Luulyo nala dabaaldegi jirtay baa maanta gees taagan oo rabta inay dhacdo midnimadii aan keennay waa ku khasaaray hadday ku khasaareen iyo haddii kaleeto waxay u baahan yihiin garnaqsi iyo gogol ballaaran oo loo siman yahay oo arrintaa lagu soo afmeero oo si kastoo lagu xallin karo lagu xalliyo waxay u baahan yihiin iyagu gaar bay istaageene gobolladii kale oo Soomaaliyeed waa kala maqan yihiin waxbay kala tabanayaan duruufo adag bay ku kala jiraan nin walba gaarkiisa ku qabsatay Puntland waxaa gaarkeed u qabsatay duruufo qalabsan waxaa gaar u leedahay oo aanan Soomaali la wadaagin colaadii ka dhalatay buuraha Calmiskaad iyo Calmadow colaadihii ka dhashay badda ee burcadbadeedda ah oo Puntland gaar u heshay duruufo kale oo qalabsan oo aad u badan baa soo maray waxaan ka xumahay kuwa iyo kuwa la mid ah inay dhammaan geeyga Soomaaliyeed ee gobollada Soomaaliyeed kale ay ka jiraan waa dhibaato inay Soomaali isku gurman weyday waa dhibaato inay Soomaaliya ay maanta ajanda qaran oo midaysan ay yeelan weydo waa dhibaato Soomaaliya inay maanta mid qura ahaan weydo oo isku xalool ahaan weydo in xaqiiqada laga boodo ma habboona waxaa jira kala tabasho waxaa jira dareen waxa la isku khilaafsan yahay dastuurkii waxa la isku khilaafsan yahay nidaamkii dawliga ah waxa la isku khilaafsan yahay say dawladda Soomaaliya u ekaanayso siday maamulada ahaanayaan siday heerarka dawladdu kala noqonayso arrintaasi shacabka Soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin hadday dalkii xorriyadiisa magac ahaan u ilaaliyeen cadow ajnabiyana ka ilaaliyeen laakiin Soomaali waxay ku guul daraysatay inay dalkeeda argagixisada ka xorayso inay dalkii ay nidaam midaysan u samayso in dastuur midaysan loo sameeyo marar badan ayaa waxaa dhaca qolo walba qolada kale eed inay u tiriso eed waxba noo tarimayso laakiin marar badan baan waxaan ku celinay Puntland waxaan diyaar u nahay garnaqsi waxaan diyaar u nahay miis wada hadal oo furan oo dareenka dadkaan annagoo ka matalayna aan soo bandhigno waxaan ka codsanaynaa maamulka dawladda federaalka ah maamulada dawladda xubnaha ka ah dadka Soomaaliyeed oo dhan dareenkooda inay intay meel isugu wada yimaadaan heshiis laga gaaro qaabka dawladdeenu ay noqonayso haddii kii lagu heshiiyey 2004 ee dawladaha maanta jira lagu dhisay ee federaalka ah wax laga gansaday waxa la rabaa intii la isu yimaado in la yiraahdo dib ha loo fiiriyo waxa marar badan maqashaan Puntland waxay diidan tahay dastuurka waxa lagu heshiiyey in waxa qabyada ka la dhameystiro laakiin heshiis laguma aha in dastuurkii hadda jiray wixii dhignaa la bedelo dastuurka hadda socda ma aha dhamaystir ee waa waxba ka bedel waxa la bedelay dhammaan mabaadi'da asaasiga ahayd waxa meesha la rabaa in laga tuuro nidaamkii federalismka waxa meesha la rabaa in laga tuuro xuquuqdii dadkaan ay lahaayeen
oo maanta aan cidna ka soo celin karin puntland waa la garanayaa dalkan markii ay dowladdii dhexe ee ahayd dowladda centraalka ah burburtay maanta siday tahay waa la garanayaa barxaddaas maalintaas iyo maalinta sawakeed waa la garanayaa gobollada iyo degmooyinka puntland siday ahaayeen waa la garanayaa arrintaas arrin dadka soomaaliyeed oo dhan dan u ah weeye gobol kasta degaan kasta oo soomaaliyeed wixii wanaaga oo gobol iyo degmo ka jira waa la wadaagaa gobollada puntland degmooyinkeeda waxaad markhaati ka tihiin soomaali oo dhan inay ku idisha oo ay kala qoqob ku dareemin oo ay ka wada noolaadaan oo waajibaadkiisa ay u wada siman yihiin oo xuquuqdiisa loogu wada leeyahay waxaan rajaynaynaa gobol kasta oo soomaaliyeed inuu sidaa noqdo inta hadda cadowga iyo duruufaha haystana ilaahay ha ka saaro waxaan diyaar u nahay puntland haddaan nahay dowrka aan ku leenahay dowlad dhiska inaan qaadanno annaga oo runtii mar walba ku tuuntuunsaneenna war waxaa heshiiska lagu yahay ha la ilaaliyo arrimaha siyaasadeed ee mararka qaarkood madaxda qaybtood leeyihiin iyo dhismaha dowladnimee la rabo inay waarto oo haddoo kale 65 sano kadib aan u dabaaldegayno oo aan rajaynayna sida dowladaha qaybtood 100 sano iyo kumanaan loogu dabaaldego waxay u baahan tahay sal adag waxay u baahan tahay qaanuun aan la badbedelin waxaa la rabaa dastuur madaxweynihii yimaadaba uusan wax ka fartafartayn waxaa la rabaa dowlad ninkii hadda markaa jooga shaarkeeda isla ekaysiin dadka ha loo dhaga nuglaado ha la aqbalo dareenka dadka dowladnimada waxaan diyaar u nahay oo aanan rabnaa inaanan wax gaara ka lahayn soomaali waxaan caddaynaynaa waxa aan doonayno inaan cod dheer ku sheegno haddii waxa aan doonayno ee heshiiska lagu yahay wax ka duman oo ka wanaagsan noola hayo shacabka reer puntland ha loo soo bandhigo ma aha inaan in lay qanciyo ma aha golaha wasiirada in la qanciyo ma aha nin siyaasiya oo dan leh inuu dadka wax u sheego waxaan ka digayaa dowladda soomaaliya oon ognahay inay duruufo badan haysato oon ognahay argagixisadii inay gobolladii koonfureed fara badan ku hayso oon ognahay ciidamadii soomaaliyeed inuu burbur badan ku dhacay waxaa nasiib darro ah in maalin walba wiilal laabtoobyo wata ay leeyihiin puntland baa ciidamo ka qorayna oo qarsoodiya oo hadda meelka laalaabanaya waa foolxumo waxaan ka baqaynaa in dadkaasi caqligooda dadka ay ku cayaaraan waxaan rabnaa siyaasiyiinta reer puntland ee meelaha kala jira hadday dood qabaan puntland waxay u gudubtay nidaamka doorashooyinka waxay leedahay asxaab waxaan ogolnahay nin walba aragtidiisa iyo dhaliishiisa waxaan rabnaa inaan kala saarno dhaliilaha iyo arrimaha siyaasiga iyo arrimaha qaanuunka ah iyo sharciga qofku xaq uma leh inuu dastuurka siduu rabo ka yeelo dhaliil waa jeedin karaa damac siyaasadeed waa yeelan karaa loolan iyo xudxudasho waa yeelan karaa laakiin inuu dastuurka iyo qawaaniinta dalka intuu ka xadgudbo haddana uu leeyahay xasaanad baan leeyahay wax isqabta maaha qofka dhahaya xasaanad baan leeyahay oo puntland kala burburinaya wixii laga yeeli lahaa